واتاي بسم الله الرحمن الرحيم مر لبad baan ku celinayaa meel aad joogtaan ma ku soo dhawaada waxa waaniga Cabdilaahiya aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa caawa si fiican isku markayno iftiinku nagu yar yahay codka inaad maqasho ma muhiima waxa halkan ila fadhiya Axmed Cabdi Ciise oo isagu ah aqoonyahan kaga hadlaya arintan doorashada ayaanu kaga hadlaynaa aniyo Axmed ba codkeeda si fiican maqashay ma rajaynaya hawadna maqlaysa aad baad ma hasan tahay asma jaaba sheegtay inay maqlayso idinna maqlay ma rajaynaya way markuu guriso doorashadii sidee ayay u dhacday maalintii dhaweyd waxaan idin soo qadinoo kaliya waxaan idin soo qadinay codad baan ka hadalay codadkii soo baxayay laakiin waxaan idin socodsiinaa doorashadu inay si qurux badan u dhacday oo aad iyo aad u qurux badan oo boqolkiiba boqol wanaagsanayd oo runtii dadka reer Somaliland xusbi kasta ha u codeeyaan ay aad iyo aad u qurux badnayd Axmed bay la faaqidaya waxaan kaloon ka hadlaynaa xusbiyadu codadka ay kala sheeganayaan magaalada Hargeysa Somaliland inteeda kale wax dabaaldega kama socdo xusbi guuleystay oo sheegay inuu guuleystay oo sacabatumaya iyo dadweynaheena mana jiraan cod rasmi ah oo golaha guddiga doorashooyinka ka soo baxayna ma jiro laakiin waxa jira codad ka soo baxaya xisbiyada siday u kala heleen xisbi kastaaba wuxuu haystaa intii uu helay marka taasan ka wada hadlayna iyo saadaashii uu Axmed sameeyay barnaamij hore ku soo qaadanay aniga Axmed oo laga yaabay intii TV-ga igala socotay inaad TV ka daawateen marka arrimahaas aanu ka hadlaynaa imika may maqlaysaan haddaad maqlaysaan ha ku soo qoray idin koomaadan qofkay maqlaya ku soo qor ha qoraan u baahanay hadal dheer uma baahni si wanaagsan miya codka kor u qaad miya ma maqlayo marka codkiina inaad codkayga maqlaysaan in kale ayaad sheegaysaan waad maasantahay mar labaad haaba tiraadeen Axmed markuu ugu horeysa doorashadii waxay ahayd doorasho aad u qurux badan si qurux badan u dhacday aad iyo aad looga maqsuuday waxyaabaha doorashada adiga ku soo jiitay Axmed amartu waxaad maadaama aad joogtay markuu ugu horeysa Cabdilaahi doorashada waan joogay magaalada Hargeysa ku sugnaa ilaa inta waxa doorashadu aanu bilaamin ayaan Hargeysa ku sugnaa waxay doorasho qurux badan ayaa noo dhacday waxay indhahayga soo jiitay sida dadweynaha reer Somaliland sida wanaagsan ay safaf u galeen sida wanaagsan codbixinta ay ugu dareereen waxyaabahaas ayaa ka mid ahay waxyaabaha soo jiitay waxa kale Cabdilaahi ugu muhiimsanaa sida ciidamada nabadgelyadu ay ammaanka u sugayeen oo aad iyaguna hambalyo mudan waxa kale oo hambalyo mudan guddiga doorashooyinka saar ay say doorashada uga hawl galeen oo aad iyo aad u qurux badnayd saad ula socoteen Cabdilaahi oo shabeelka waxaan ku sugnaa Mansour Telekom ku sugnaa waxa halkaasi warbixin hordhaca na siiyay kormeerayaashii doorashada ee caalamiga ah waxaana ka hadleen say doorashada Somaliland u dhacday waxayna sheegeen in doorashadii Somaliland ay u dhacday si aad iyo aad u qurux badan oo ay ku soo koobeen oo ilaahdeen wuu wanaagsanaa dabcan way sheegeen waxyaabo yar oo khaladaad ah oo ilaahdeen laakiin khaladaad yar oo kooban oo aan magaranaysaa aan systematic ahayn ama aan baahsanayn marka waxyaabahaas way iska jireen waxa kale oo ka hadleen shalay toolo ilaahdeen in dadweynaha reer Soomaaliya mustaqbalka loo baahan yahay in iyagu codeyn karaan oo dee wax jistay dad waxay ka hadleen habka codkan qarsoodi yahay waxaan dimuqraadiyadda ayay asalkeedaba tahay in qofku codkiisa ku bixiyo si garanaysaa qarsoodi isagu soo yahay laakiin guud ahaan waxaan Somaliland waxa u qabsoontay doorasho aad u wanaagsan oo si wanaagsan oo qurux badan u dhacday waatay aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay Axmed عبد جامع وأخويها أحمد عبد عيسى أحمد عبد جامع نكره أحمد عبد عيسى ويان وأخويها رئيس مالنا وطبعا دراسات سمية سياسة فكرة وقضاء بين شيء من نقف كستاب فكر سياسة بو مسيحي لكن فكر كيس سياسة كما هذلنا وحنو كهذلنا هتبت دورشدي أينو كهذلنا عاو هالكي أي مريسة بيسويدين له دورشدي هالكي بي مريسة waxaan ogahay in badan oo idin ka mid ah in aad doorashada isweydiinaysaan leedihiin xagee ay ku dambeysay maxaa codadku soo baxay bixilaayi horta markuu ugu horeyso waxaan idin la socodsiinaynaa haba yaraatee ma jiro xusbi sheeganaya guul
oo isagu intuu soo baxay le anaga guulaysanay oo guushana raacday oo si toosa warbixin ka soo saaray sidaad ku daawateen shirjiraydada ay qabteen saad ku daawateen maxaa ku raadeen warbiximaha ay bixiyeen laakiin waxaan idin la socodsiinaynaa inay haddana sidoo kale jiraan codad soo baxaya tiraa oo xusbiyada laftoodaanu ka helayno wakiiladii u joogay meelo kala duwan iyo dabcan gudaha caasimadda Somaliland oo ay ka soo saarayaan codadka laakiin waxaanu ixtiraamaynaa mar walba oo ixtiraamaynaa gudida doorashooyinku inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee soo saaraya codka la kala helay iyo sida tiradu ay kala tahay iyo xisbiga guulaystay cidda kaliya ku dhawaaqi karta waa gudida doorashooyinka waxa halkaanu ka sheegnaa waxa weeyaan waxyaabaha soo baxaya ee na soo gaaraya iyo sida la iskugu faanayo anigu waxaan tagay xarunta xisbiga wadani sidoo kale xarunta xisbiga kulmiye imikana waxaan ku raagay oo aan dib ugu dhacnay oo aan ka xumahay oo aan tagay xarunta gudida doorashooyinka Somaliland waliba xaruntii gudida doorashooyinka Somaliland ee caadiyan ayagu lahaayeen hawshu way ka ballaaratay waxa sanaaduuqdii iyo codadkii gobolka Maroodijeex iyo codad kaleba lagu tirinayaa hoteelkii la odhan jiray Main Sing cidii garanaysa waa hoteelka barbarka ku haya dooxa Hargeysa iyo bridge-ka cusub ee dhinaca Hargeysa u kala gudba gobanka iyo hawdka dhinaca magaalada Hargeysa u kala baxa marka tirintii codadka ayaa lagu jiraa ilaa iyo hadda gobolka Maroodijeex ayay codkiisii tirinayaan marka codadku halkaas ay marayaan laakiin waxa jira tirooyin soo baxay oo cadeynaya in xisbiyadu doorashada ku kala hadheen tirooyinkaasi ma aha kuwa si rasmi ah u soo baxay oo la oran karo waa iyagoo saxa laakiin waxay yihiin kuwa dad badani ay ku xisaabtamayaan xisbiyadu way og yihiin sidan qoraalkayga ku soo sheegay waxaan helay anigu lafaantaydu waxaan helay macluumaad saxa oo muujinaya codadka tiradu intay tahay laakiin anigoo ixtiraamaya idinkana waan ixtiraamaya runtii waxaan intaba idinku sheegaya waxa weeyaan waxaan dareemayaa xiisaha aad u haysaan doorashadan iyo natiijadeeda axmed iyo aniga ayaa qaada dhigi doona laakiin marka ugu dambaysa waxaad la socotaan waanu sheegi doonaa codadkii siday kale yihiin qaarkood laakiin codkaanu sheegaynaa maaha codkii rasmiga ahaa ee gudida doorashooyinka ka soo baxay mana aha cod lagu dabaaldego amaba laga naxo markasta gudida doorashooyinka ayaa loo noqonayaa oo codka rasmiga iskale laakiin axmedoo doorashada maxaa la saadaalinayay weeyaan su-aasha waxaad isweydiisaan idinku maxaad saadaalinayseen axmed iyo anigu waqti hore ayaanu saadaal samaynay axmed lafahantiisa la yimid maxaan ku rahdaay codod uu sheegayay in lagu kala helayo saadaashii hore axmedu maxay sheegaysaa haddaad eegto cabdilaahow waa arrin aad iyo aad u qurux badan ruuxaantii doorashooyin badan baa dalkeena Somaliland ka dhacay bal haddaba waxaa jirta muddadii aan waddanka ku sugnaa week ilaa 2 week ka hor waxaan sameeyay daraasad aad iyo aad u ballaaran oo weli qof reer Somaliland oo academic oo sameeyay ma jirin ruuxaantii waxaa ka qayb galay 500 oo reer Somaliland daraasadda oo gobolada dhan la kala socday dadkan waa interview ka qaadnay ruuxaantii daraasadayda waxaa ka soo baxay reer Somaliland waxaan leeyahay waa daraasad waxay noqonaysaa aad iyo aad sida wadamada reer galbeedka oo kale ugu dhadhow marka daraasadayda Facebook-kana eega waa daraasad aad u ballaaran oo 6 gobol ee Somaliland aan ku samaynay 500 oo qof in ku dhow ayaa daraasadayda ka qayb qaadatay waxaan leeyahay khibradeedii aqoonteedii daraasad lagu sameeyo waxaa kaloo fikrado iyo afkaaro daraasadaydan ka qayb galay kumanaan shacbiga reer Somaliland ee gobolada iyo degmooyinka ku nool markaasi waxaan oran lahaana shacweynaha reer Somaliland ee Facebook-gayga ku xidhnaa inay Facebook-gayga eegaan ruuxaantii xilligeeda taariikhda soo saaray 2 week ka hor bay ahayd doorashadan goorma soo saartay daraasadda waxa soo saaray week ka hor baan soo saaray intaan doorashada loo dareerin waxa lagu qoray website-yada Facebook-gaygana waan soo dhigay ruuxaantii daraasaddaasi ha ignore garaynina daraasadda aan soo saaray dib ugu noqda ruuxaantiina waxaad iga markhaati furi doontaan inay xaqiiqada dhabtahay ku dhaweyd inay asiibtadu jeedaan inay isku beegmeen inay dee waxay qoraa ay ahaayeen wax dee cilmiyan saddex way ku dhacday sida sheegaysay marka dib ugu noqda Cabdilaahi waxaa jirtay doorashooyinka asxaabta qaranku gobolay ku kala xoog badan yihiin waa sida xisbiga kulmiyo kale wuxuu isagoo
ku xoog badnaa afar gobol buu ku xoog badnaa oo ka mid ah gobolka Maroodijeex Togdheer Sanaag iyo saaxil iyo may saaxil waxa Togdheer may Maroodijeex Togdheer Sanaag iyo Sool afartaa gobol buu ku xoog badnaa xisbi labada gobol ee kale Awdal iyo saaxilna isaga waa laga biday doorashooyinkii ugu dambeysay marka si uu kulmiye u badiyo waa inuu afartaa gobol uu ku badin jiray uu si weyn ugu guuleystaa haddii xisbiga wadani oo kale aad islahayd aad sooran kartaana wuu yani doorashada uu ku guuleysan karaa isna waa inuu gobolada uu xooga ku leeyahay xisbiga kulmiye sida gobolka Maroodijeex oo kale oo ay natiijada oo ah ka guushu ay ka iman doonto waa inuu ku guuleystaa haddii kale waxay noqonaysaa inaanu doorashada aanu ku guuleysan karin waatay Axmed wuxuu inoo sheegay doorashadan cidda guuleysanaysa waxay noqonaysaa waa inay afar gobol ka heshaa cod aad u fara badan gobolladuna isku wada cod ma bixinayaan gobolka ugu codka badan ee hore aan isku raacnay ognahay tiradiisana la sheegay waa gobolka Maroodijeex soo saama Axmed gobolka ugu codka badan Cabdilaahow waxa weeyaan codka badan yaala Maroodijeex kulmiye si uu guuleysto wuxuu u baahan yahay inuu gobolka Maroodijeex codka ugu badan cod aad u badan uu ka helo haddii uu markaasi ay fikirkeena inuu aynu oran karno wadani baa guuleysanayna waa inuu gobolka Maroodijeex kaga adkaada xisbiga kulmiye haddii uu kaga adkaan waayo wax rajo xisbiga wadani halkaa u yeelan si kale u dhigaya waliba waxa weeye haddii uu wadani ku guuleysanayo doorashadan oo uu gobolka Maroodijeex heli kari waayo tirada ugu badan waa inuu tiro u dhiganta ama ka badan ka keena gobolada bariga Sanaag Sool Togdheer iyo gobolka dhinaca galbeedka ee Awdal waxay isweydiin leh xisbiga wadani hadaba tirada uu kala imanayo goboladaasi oo xisbiga kulmiye oo Maroodijeex anagu bay idin sheegay aan idin hore idinku sheegay gobolkan Maroodijeex waa gobol u xiran xisbiga kulmiye saadaasha imika ka soo baxaysa sansaanta ka soo baxaysa ilaado sansaanta ka soo baxday iyo codadkaanu arkayna waxa ay u badan yihiin gobolka Maroodijeex in xisbiga kulmiye uu ku helay tiro uu markaasi iskaga caabi karo codad kale oo kaga yimaada gobolada kale oo uu wadani soo helo kuugu dara Cabdilaahow waxaan helaynay warbixino ayaynu ayaamaan waliba gaar ahaan maanta aynu helaynay warbixinadaas ayaa waxa ay tibaaxayaan in xisbiga kulmiye uu codad aad u fara badan uu ka helay gobolka Maroodijeex sidaa daraadeedna ay adkaan karto in codadka faraha badan uu ka helay Maroodijeex iyo gobollo badan oo kale in haba yaraatee guusha laga qaadi karo taas ayaa waxaan idin sheegaynaa mar labaad waxa naga xasuusinaa faaladani kuma salaysna codkii rasmiga ahaa ee gudida doorashooyinku ay soo saareen waanu ixtiraamayna laakiin haddana waxa la yidhi warba u gaajo kulun dhammaantiinba meel kastoo adduunka naga daawanaysaan waxaad aad u xiisaynaysaan oo aad doonaysaan inaad ogaataan doorashadan iyo sida ay noqotay doorashadani waxay noqotay tii ugu adkayd ee wax kasta la isku adeegsado waxa la isku adeegsaday ilaa qasaayid baa la isku adeegsaday waxa la isku adeegsaday suugaan kala duwan waxa ku kala bayray salaadiintii waxa ku kala bayray